Soomaalidu nina mahmaah loo soo qaadan jiray waxa la yiri ninkaas hadda fiir waa Soomaalidu hore dad xataa cilmi iyo wax badan aan baran inuu yahay dhacdo qofkaas qof banu aadam been kama keeni karaan markaas u tashadeen Soomaalidu moogtay dad iska shar badan jira aan been ka keenal ninkaas waa been ka keenay oo u tashadeen dibiyay soo qabteen midina waa afaysteen dabna waa shireen markaas orod ragga u soo yeer dibigaana la qala u soo yeer dadka hilibka cuneen kuwa loo soo yeerana makriga wax ka wada markaas waa u orday raggii u aaday markuu aaday dibigiina xariga laga jara dabkiina la aas markaas u tag warna keena waa la nii yeerayo waxa la yiri dibiya la qalaahe halkaan ragga u soo yeer saas aniga laygu yiri na keena markaas dibigi ma la qal waa la qalay ka raba intaas bisay ka raba xal qalay maanta markaas yiri dibi waa xirnaa dabna waa shidnaa dibi xiran dentiis deyn ahaan anigu ma ogi dab shidan dentiis duugid ahaan anigu ma ogi hada koor ihtiraaska balfiir iyo quyuud dibi waa xirnaa dabna waa shidnaa dibi xiran dentiis deyn ahaan aniga ma ogi dab shidan dentiis duugid ahaan ma ogi dibiga in la sii daayo waa dhici karta anu warka ma hay soo ma jeed la naga adkaadeen iska dayno ninkaana nin meel u adkaatay weeye meel u sii jeedo weeye wani qiyaamo iyo xisaab u jeedo soo ma jeed marka sifadaas fiican oo aan arabkiisa been laga keeni karin qof dad ku arto waa la majeersada saas oo kale inaad noqoto